hamuugaan oo ha ka maqnaan Marwo Beauty and Cooking. madashu waa madashaada, waxaad ka heli kartaa wax kasta oo ku raali geliya. saxaabteeda quruxda badan, wada aragtaan gacantayda say u ekaatay. waa 2 minutes. waa kaas alaabtii aan soo samaysanay. hamuugaan oo ha ka maqnaan, wixii ay ka koobnayd oo dhan halkan ayay yaalaan. kan xiniiba igu jira, shaamburadii, allahumma salli calaa maxamed, xulbadii, saliidii, digirtii aan shiiday iyo huruudii, saabuuntii. only sonkortii baa ka maqan. halkanna waa boorashkii iyo bariiskii. waxaan rajaynayaa inay guri kasta oo Soomaaliyeed intaan laga helayo. qasilkii ayaa ka maqan, waayo qasilka intaas ayuunbaa ii taalay, waan soo dhigi lahaa insha allah bidmillaahi kariim. waxaan jeclaan lahaa hablaha walaaladaya inay kasoo tuuri doonaan. hamuugaanina oo ha ka maqnaanina Marwo Beauty and Cooking, hoyga qurxinta iyo daryeelka. bismillaahi raxmaani raxiim. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. waxaan aada u salaamayaa asxaabta ku xidhan Marwo Beauty and Cooking. marka koobaad allaha weyn ayaa mahad leh, marka labaadna waxaa mahad leh asxaabteeda igu xidhan meel kasta joogan, goor kasta iyo goob kasta. asxaabi digsigan waa digsiga lagu sameyn jiray, maxaa la yidhaahdaa isqurxinta. maanta waxaan wadaa alaab la isku qurxinayo. hamuugaani halkan waxay ku jira koobka mugdiyo sonkor ah iyo labadiis, wad aragtaan. gabadhaan walaalan saaxiibaday marna walaashay oo aroos ah ayaa iga soo dalbatay. waan u sameynayaa, wad ila aragtaan. dabku wad aragtaan wuu ii baxayaa, wax sonkori kuma jiraan. dabkaas ayaan saa usoo saari doonaa insha allah. isla socod wanaagsan waxay aan ku dari doono waan idinka dabageyn doonaa haddii aan la hoydmo. asxaabta meel kasta joogtaan cusub ay igu soo biirtay, waa mahadsantiin. kun iyo kow jeer la-aantiin abaar weeye. aada iyo aada ayaa u mahadsantiin. asxaabtii hore ila joogtayna waxaan leeyahay kun iyo kow jeer abaal ayaan idiin hayaa. asxaabta cusub ay igu soo biirtayna waxaan leeyahay ma ku khasaari doontaan iyo kusoo dhawaada Marwo. waad ka heli doontaan wax badan oo aad ka heshaan. hamuugaanina oo ha ka maqnaanina. saxaabteeda waad aragtaan sonkortii tartiib aada yar ayay hoosta uga soo dhalaalaysaa. isla socod wanaagsan. ma walaaqayo, sidaas baan u taataabanayaa, waayo walaaqa waxaan diidayaa inay burburiga yeelato. insha allah isla socod wanaagsan. alaabtani caadi ma aha. alaabtan gabadhii samaysataa way kasoo ducayn doontaa insha allah. sidoo kale halkan waxaan ku hayaa alaabtii lagu daraaye. tan haddaan idinla socodsiiyo waa misirta akhtarka ah oo soo shiiday. kan waa boorash shiidan, bariis aanan xoog u shiidin, 2 malqacadood oo xidhnaa, malqacad qasila, huruudii, 2 xabo liin dhanaan ah. insha allah shaamburadana waan idin tusi doonaa iyo xulbadana iyadana mid malqacad ayaan kaga dari doonaa. saxaabtaydan aad ka jecelahay iyo saliidda intaas ayaan ku dari doonaa. wad aragtaan sonkortii markay dhalaashay. waxaan dhan ku meesha ku madow oo dhan heer sare haddaad u dadaashid ayay ka dhigaysaa. dabku aad ayuu u gaaban yahay. asxaabteeda quruxda badan leh aada iyo aada buu u gaaban yahay. lambar 2 ayuu joogaa. isla socod wanaagsan. asxaabteeda quruxda badan leh sonkortii waxaan ku shubay misirtii, waxaan ku shubay bariiskii, boorashkii iyo koobkii liinta ahaa. sidaas ayay isku soo baxeen. halkan waxaan ku haystaa haaf saliid olyoliifo ah. isla socod wanaagsan. insha allah waan isa soo dhexgelin doonaa, waan isku soo noqon doonaa. asxaabtayda quruxda badan leh dherigii dabkii waan ka soo qaaday, wad aragtaan. waan isku cajiimay waan isdhexgeliyey. allahumma salli calaa maxamed. halkan waxaa iigu jiraa waa xinihii, halkanna waxaa iigu jiraa waa huruudii. waxa weeyaan qasilkii halmaan hadal kuma jiro. allahumma salli calaa maxamed. malqacada aad aragtaan oo huruud ah iyo haaf baan ku darayaa. allahumma salli calaa maxamed.
sidoo kale halkan waxaa iigu jirta waxaan yar intaa yar haafka iiga sii hadhay waa shaamburo iyadana wax yar baan ku darayaa oon badnayn. caagan isagana sidoo kale waxaa iigu jirta wax yar oo xulbad ah. xulbad baa iigu jirta kuma badinayo, horta xulbadda ma jecli. wakaasa intaasaan isku soo walaaqi doonaa insha allah. waan isku soo asxaabteeda quruxda badan leh halkan waxaan ku haystaa xamaamo makhribi, qof walba sidoo yaqaano, ama saabun madow. way soconaysaa waa sida shaambooga. taasaan ku shubi doonaa. sidaad aragtaanba may buuxin, wax yar ayaa ku jiray, intii ayaan kusoo shubay. isla socod wanaag. kama dambaysta waxaan ku darayaa waa malqacad kafeeya oo aan haysto. isla socod wanaagsan. alaabtii markaan isku soo qasay noocaas ayay soo baxday insha allah. kafeega ayaan si fiican soo dhexgelin doonaa. gamcahayga durba waan ku dhoobay soo ma aragtaan intii soo raacraacday. isla socod wanaagsan saxaaday markaan ka Soomaaliya. asxaabteeda quruxda badan leh halkan ayaan ku soo shubay xamaamo makhribigeeni. waa aragtaan sidaas uu yahay. sidaas ayaad korka u marsanaysaa. daragtaa isku qaadanaysaa dadkan waad isku baqaysaa. allahumma salli calaa maxamed. kaama xumaanayo, talaagadu ma baahna waayo wuu xumaynaya kuma jiraan. liin iyo saliid weeyaan iyo saabuun. allahumma salli calaa maxamed. digirta cagaaran ama digirta cagaaran aan shiiday ka dabadgeeyo waa taas. اللهم صل على محمد ونعاس. meel kasta dukaanada waa ka heli kartaan qofkii u baahan. isla socod wanaagsan. haddii aad la hoydmo qofkii u baahan uu igala soo xiriiri karaa. alaabtii qurxintu ka daba dhacaysaa. hore alaabtan waan la maqnaa, waan soo tijaabiyay inaba caadi maaha. shaamboo baan ku dhigo ma baahanaysid iyo dawo iyo qasqas. sidaadaasad qasqas ku marsan tahay. waxaan leeyahay asxaabta reer Marwo ha moogaanina oo ha ka maqnaanina Marwo Beauty. like-ta, comment-iga, share-ta waa xaqiina. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.